hambalyo madaxweynaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee helay guusha aqoonsiga geediga dimuqraadiyadda Soomaaliland midhaheeda ay difaacaan oo isbaahisiyo cadow ayaa inagu bilaabmay waa hadal qoraal ah oo uu ku baahiyay bartiisa Facebook ambassador Cabdifataax Saciid Axmed safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Djibouti waxa aan dhammaan shacabka meel kasta oo ay joogaan ugu hambalyeynaya aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka heshay dawladda Israa'iil oo ku dhawaaqday ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu in Israa'iil si rasmi ah u aqoonsatay Soomaaliland isla markaana markii labaad ee ay aqoonsatay ay tahay Israa'iil waxay ahayd 1960kii Juun markii Israa'iil ugu horseeday in ay Soomaaliland u aqoonsatay dal madax bannaan waa guul taariikhi ah oo u soo hoyatay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 34 jirsaday hambalyo ayaan leeyahay waxaan bogaadinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo madaxweynayaashii ka horeeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur Maxamed Caaji Ibraahim Cigaal Daahir Yaale Kaahin Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha maanta nasiibka u helay inuu ka rumeeyay riyadii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka midho dhaliyay hamigii iyo higsigii Soomaaliland in muddo ah ku soo taamaysay maalmaha inagu soo fool leh dalal badan oo kale ayaa ku dhawaaqi doona aqoonsiga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland tani waa midhihii iyo geedigii aqoonsiga Soomaaliland ahna qaadkeeda dimuqraadiga ahaa ay Soomaaliland 5 madaxweyne iska soo dhaxleen xukunka isla markaana madaxweyne kasta meel wanaagsan soo gaarsiiyay kana soo shaqeeyay qadiyadda qarannimada Soomaaliland geed gaaban iyo mid dheerna u soo fuulay hal baase iga dardaarana shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kula dardaarmay in maanta uu bilaabmay dagaal culus oo Soomaaliland ku soo maqan sidaa daraadeed mucaarad iyo muxaafid waxaan ka codsanayaa in loo midoobo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland midhaheeda maanta aynu goosanayno horaanteedii ha lagu daba faylo madaxweynaha iyo dawladda gacan adagna ha lagu difaaco qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland guul iyo gobonnimo waxaa bilaabmay isbaahisiyo cadowgu uu ku doonayo in uu ku wiiqo qadiyadda aqoonsiga Soomaaliland ee maanta Israa'iil ku dhawaaqday qof kasta oo muwaadin ah oo reer Soomaaliland waxa saaran xil inuu nabadgelyada ilaaliyo isla markaana ka warhaya xaaladda dalkiisa si dhowna ula shaqeeya laamaha amniga ayuu ku soo afmeeray qoraalkiisa ambassador Cabdifataax Saciid Axmed safiirkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay dalka Djibouti ahna diblomaasi muddo 25 sano ka soo shaqeynayay siyaasadda arrimaha dibadda mid dadkii tacabka badan galiyay iibgeynta qadiyadda qarannimada Soomaaliland